داوديال قيبتنا وقيبتي لبادي وركني ورحلين مع دماسيات وورفدي ميديا كان دنيا وكود سبتمبر لبادي كوني ستيديو تمام داوديال شقين قيبتنا وقيبتي لبادي وركني ورحلين مع دماسيات مريكان ayaa ku dhawaaqay inuu gabi haanba ama qaybtii ugu dambeysay dhaqaalihii uu sii jiray hay'adda qaxoontiga u qaabilsan reer Falastiin qaramada midoobay uu sheegay inuu ka gooyay waa hay'adda loo yaqaano UNRWA war qoraal oo soo saartay gabadha afyaanka waa wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka Heather Nauert ayay waxay ku sheegtay in ay baareen dhaqaalaha ay siiyaan hay'addaas isla markaana loo adeegsado waxyaalo kale sida daraadeedna aysan haatan wixii ka dambeeya si wadi doonin inay dhaqaalaha ay siiyaan horay ayay u gooyeen dhaqaalihii ay sii jireen xukuumadda fadhida magaalada Ramallah ee Maxamuud Cabbaas waxaana tan daba socotaa dagaalka dhinaca dhaqaalaha iyo waliba dhinaca markaas loolanka adag ee lagu doonayo in reer Falastiin lagu soo fadhiisiyo miiska wada hadalka isla markaana lagu ogolaysiyo aqoonsiga madaxweyne Donald Trump ee magaalada Qudus barakaysan uu ugu meeriyay dalkaasi Israel taasoo ay horey u diideen reer Falastiin dhinacyada dhan afayeen u hadlay madaxweynaha dalkaasi Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa ugu yeeray arinta weerar cad oo ka soo horjeeda ama ka dhana dadka reer Falastiin ee dhulkooda horey loo boobay wuxuu yiri afayeenka oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa wuxuu yiri ciqaab noocan oo kale ah ma bedeli doonto buuri xaqiiqada ah in aysan jirin door Mareykanku uu ku yeelanayo gobolka iyo in uu xaaladda nabadeed iyo waliba xal helista dawladaha labada gobol buuri ama labada dad Israel iyo Falastiin uusan door ku yeelan Mareykanka ayuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters Nabil Abu Rudayna oo ah afayeenka madaxweynaha reer Falastiin madaxa guud ee hay'addaasi qaramada midoobay u qaabilsan asaguna madaxda ka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan reer Falastiin oo leeyahay Chris Gunness ayaa ugu yeeray in barnaamijkan uu ahaa ugu yeedheen haatan midaan isku hadlay karin Mareykanku uu ahaa barnaamijka ugu fiican ee caalamku uu horumar ka gaaray wuxuuna sheegay in barnaamijka lagu taageeri jiray carruurta yaryar reer Falastiin qaxoontiga ku ah xeryaha Trabeelka ah ee wadamada Carbeed ku yaala ugu weyn tahay tan ku taala Jordan iyo sidoo kale taageerada dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada iyo dhinaca soo saaris dhalinyarada wuxuu yiri iyo carruurta dhulkoodii laga soo barakiciyay Mareykanka ayaa kamid ahaa dalalka daqda ugu badan bixiya wuxuuna ka sareeyay xataa AU waxayna u kala sareeyeen dalalka lacagta ugu badan waxa bixi jiray dalka Mareykanka lacagta labaadna waxa bixi jiray AU ama midowga Yurub lacagta saddexaadna waxa bixi jiray Saudi Arabia Jarmalka ayaa asaguna ku jiray booska afraad halka UK na booska shanaad ay ku jirtay waxaana ka dhigan tahay in lacagtan qaybtii ugu muhiimsaneed haatan ay go'daysta markaana dadka qaxoontiga ah ee ku darxumaysan dalalkaasi dariska ah ee waliba dalkaasi Jordan xirada kamid ah reer Falastiin ay dhibaato xooggan la soo kulmi doonto iyo waliba dalkaasi Lebanon halka dagala socotaan warfadhi media haatan Ukraine hogaamiyihii gonigosadka ahaa ee xukuumadda iyadu nafteeda ugu yeedhay ama dadka ayagu iskood isugu magacaabay jamhuuriyadda loo yaqaan Donetsk People's Republic jamhuuriyadda dadka ee Donetsk oo loo jeeday Alexander Sakharchuk ayaa lagu dilay qarax asagoo meel coffee laga cabo ama maqaayad shaah laga shaaho kula la fadhiyay qaar kamid ah golihiisa wasiirada isagu uu magacaawday 42 jirkan gacansaarka dowladda lahaa Moscow ayaa la sheegay in isaga iyo saraakiil kale lagu weeraray bambo qarax weyn halkaas ka riday kaasoo dhaawac xoogan uu ka soo gaaray isla markaana korkii loo gudbiyay dhinaca isbitaalka uu ku geeriyooday ra'iisul wasaarihiisa isagu madaxweynuhu ahaa ra'iisul wasaarihiisa Alexander Timoveyev ayaa isaguna dhaawac culus uu ka soo gaaray ee jamhuuriyadda iskeed iyadoo isugu magacaawday inay tahay jamhuuriyadda ama la baxday magaca jamhuuriyadda la yiraahdo markaasi Donetsk ee bariga dalkaasi Ukraine oo ah gobolka Crimea ee uu sida jajubka ah ay ku qaadatay dawladda dalkaasi Russia sanadkii 2014 dawladda Russia wasiirkeeda arrimaha dibadda Sergey Lavrov ayaa wuxuu ku eedeeyay in ay iska cadahay in dambigan uu ka dameeyo buuri xukuumadda fadhida magaalada Kiev oo la jeedo xukuumadda Ukraine uu sheegay waxay wafiyaan goordama u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna oo la yiraahdo waa afayeenka Maria Zakharova ee dalkaasi Russia u hadashay inta badan ayaa iyaduna waxay sheegtay inay dawladdeedu cadeen u hayso in hogaamiyahan la dilay ay ka dameeyaan waxay ugu yeedhay canaasiirta taageera dawladda dalkaasi Ukraine ee iyadu doonaysa inay arinta ay burburiso ama ka hortagto si kastaba noqotay dawladda Ukraine ayaa arinta ku gacan sayday waxaana afayeenka wasaaradda la yiraahdo wasaaradda amniga adeega amniga ee dalkaasi Ukraine oo la yiraahdo Yelena Gitsyyankaya ay sheegtay
sheegtay in aysan haba yaraatee aysan wado u haynin ama dooq u haynin hadalka Moscow waxayna sheegtay in dadkan ay iyagu istileen oo awalba ay ahaayeen kooxo iska soo horjeeda oo runtii bay tiri gabadhu bay tiri kuwa iyagu soo kala horjeeda ayaguna ay dambigooda aysan kula soo galgal karin waa sida ay sheegtay dalalkaasi Ukraine iyo dalkaasi Russia ayaa xaaladooda xun tahay tan iyo intii gobolka Crimea ay qaateen dalkaasi Russia waxaana jirtay xabadojin aan caga badan ku taagnayn oo reer Yurub ay ku cadaadiyeen Russia taasoo dhowr jeer burburtay ama jabtay halkan nagala socotaan warfadhi media wararkii dunida warbixinayay cadulaasiyada iyadoo Turkigu uu ku jiro loolan adag iyadoo Turkigu la ogyahay inuu loolan adag u ka wajahayo dalka Mareykanka oo ciqaadka ugu weyn ama kamid ciqaadada ugu weyn uu lahaa ayaa haatan waxa hagaagaya ciqaadka uu dalkan u leeyahay midowga Yurub wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Netherlands ama dalka Holland ee Soomaalidu aqoon dhowdahay iyo dalka Turkiga ayaa waxay markii ugu horeysay ku heshiiyeen in ciqaadka labada dal dib loo soo celiyo kuwaas oo mar isku sigtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Mevlut Cavusoglu iyo waliba dhigiisa dalkaasi Steve Pollock ayaa shir ay ku wada yeesheen magaalada Gimenich waxa ay isku raaceen in sida ugu dhaqsaha badan labada dal ay u kala ceshadaan baa la yiri safiiradoodii isla markaan u soo magacaabaan si horey loogu qaado baa la yiri waxa ay ugu yeedheen labada dal 400 sano guuradii xiriirka labada dal ee soo jireenka ayuu ku qoray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Netherlands bartiisa Twitterka wuxuuna sheegay in wada hadalka labada hogaamiye ama labada wasiir uu la yeeshay wasiirka dhigiisa uu ahaa buuri mid dan iyo faa'iido badan u ah labada qaran waxa uu sidoo kale markii ugu horeysay dawladda Netherlands oo iyadu aad ugu kaneed dadka muslimiinta iyo waliba dadka reer Turkiga ay sheegtay inay riixi doonto musharaxnimada dawladda Turkiga ee ku biirista AU isla markaana ay riixi doonto in ugu yaraan Turkiga cilaaqaad wanaagsan oo dhinaca dhaqaalaha la yeesho labada dal ayaa xaaladoodu adkaatay bishii Abriil wixii loo gaaray sanadkii 2017 kolkii ay soo musaafiriyeen wasiirka arrimaha qoyska ee dalkaasi Turkiga oo iyadu doonaysay in ay olole dhinaca codayntii dastuurka xiligi ama aftidii dastuurka ahayd ay ka samayso jaaliyada degan dalkaasi Netherlands oo dawladda Netherlands aad uga soo horjeesatay wali halka nagala socotaan warfadhi media inteena ka bixin wararka Turkiga madaxweynaha dalkaasi Francisca Emmanuel Macron ayaa isaguna wuxuu ugu yeeray midowga Yurub in ay la yeeshaan wuxuu ugu yeeray cilaaqaad iskaashi dalalka Turkiga iyo Russia oo uu sheegay in ay tahay mas'uuliyad weyn oo ina saaran wuxuuna markii ugu horeysay khafiifiyay hadal dhawaan ka soo yeeray oo uu ku duray heshiiska dhinaca amni iyo waliba hub kala iibsiga lixaad kale labada dal dhexmaray oo shaki ka muujiyay wuxuuna markii ugu horeysay ka xariiqay in dalka Turkiga uu isagu mas'uul ka yahay amnigiisa iyo difaaca cidda uu la hub ka iibsanayo difaac iyo waliba gantaalo wuxuuna Emmanuel Macron oo ka hadlayay ama la taagay magaalada Helsinki ee dalkaasi Finland oo uu la hadlayay madaxweynaha Finishka waa madaxweynaha dalkaasi Finland ama Finishka Sauli Niinisto wuxuuna yiri dawladaha midowga Yurub waxay dan ugu jirtaa inay cilaaqaad dhow la yeeshaan dalalka Turkiga iyo Russia waayo waxaanu u baahanahay in aynu dalka Ruushkana ka nabad galno dalka midowga Yurubna ay la ganacsadaan dalka Turkiga oo dhaqaalihiisu wanaagsan yahay dhaqaalaha dalka Turkiga oo degan waa dhaqaalaha dalalka midowga Yurub oo degan mar uu hadlayay 27kii bishan ayuu wuxuu carabka ku goday ama su'aal galiyay sida midowga Yurub ama AU ay xubinimo u sii karaan Turkiga ayadoo ay bilaayin dollar siinayso Russia oo is hayaan oo hub kaga gadanayso balse haatan wuxuu hadalkaasi kala kulmay cawaaqib xumo kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ugu yeeray in dalka Francisco uu noqday meel laga abaabulo mar walba hadallo ka dhana dalkaasi Turkiga hase yeeshee Mr Macron ayaa u muuqday haatan inuu hadalkiisi aad wax uga bedelay wuxuuna wadamada EU ku tirtirsiiyay haddii doonayaan in dhaqaalahoodu uu sii hagaago in ay heshiis wanaagsan la galaan dalkaasi Turkiga wasiirka arrimaha ama xogayaha arrimaha dibadda aan iraahdo dalkaasi Mareykanka Mike Pompeo ayaa haatan bartiisa Twitterka wuxuu ku qoray digniin ka dhana weerar kala diyaarinayo ee ka dhana dadka ku sugan magaalada Idlib ee gobolka Idlib ee dalkaasi Syria oo ay diyaarinayaan huwanta dawladda Suuriya waxa uu sheegay Mr Pompeo in aysan sugi doonin dawladda dalkaasi Mareykanku inay aragto dhiig badan oo daadanaya wuxuu uga digay dawladda Russia inay taageerto waxa uu ugu yeeray cawaaqib xumo ka dhalan karta dad la laayo waxa uuna sheegay in dawladdiisa oo dawladda dalkaasi Mareykanka ay kal walba ay diyaari karto talaabo
horeyna xogay afayeenka wasaaradda Heather Nauert ayaa ka digtay in ribaaxa kasta oo lagu dhufto dadka Idlib ku sugan ay jawaab ka heli doonaan Mareykanka. Gobolka Idlib ee xuduudda la leh dalkaasi Turkiga ayaa dowladda dalkaasi Turkiga waxay isku diyaarinaysaa iyaduna in ay si kasta oo uga hortagi karto arrintaas uga hortagto, balse ciidamada dalkaasi Syria ayaa haatan diyaar u ah inay meesha weeraraan. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa iyaduna sheegtay in 1 milyan oo caruur ay khatar geli karaan haddii weerar ku dhaco. waxaana laga baqayaa baa la leeyahay in hubka kumikada ahi sida dhow wax u dhameeya ay dowladda Bashar al-Assad ee qaran mas'uulnimada lagu tilmaamo ay isticmaasho. Daawadayaasha qiimaha leh halkan nagala socotaan warfadhi media haatan Iran. Dalka Iran ayaa waxaa la ogaaday markii ugu horeysay in uu diyaariyay goobtii ama istiraatiijiyadda ahayd ama halkii ugu istiraatiijiyadeed ee uu ka weerari lahaa ee gantaalada ballistic missiles uu kaga qubi lahaa dalalka Saudi Arabia iyo dalka Israel. saraakiil wardoon ah ayaa kolkii ugu horeeyay waxay cadeeyeen baa la yiri in la ogaaday in gantaalihii ugu tirada badnaa ay dhoobtay Iran isla markaana ay geysay dalkaasi Iraq iyadoo oo cutubyo kamid ah ciidamada al-Quds awoodda badan halkaas ay joogaan kuwaas oo ka helay baa la saldhigiyo ciidamada cilaaqaadka wanaagsan ee leeyihiin Shiicada. arrintan ayaa waxay wajigabax ku noqon doontaa dalalka Faransiiska, Jarmalka, dowladda Britain iyo garaan midowga Yurub oo dhan oo doonayay inay Mareykanka ku qanciyaan inuu joojiyo cunaqabataynta ka dhanka Iran. waxaa wararka haatan wakaalada wararka ee Reuters oo iyadu xogta heshay ayaa waxay sheegtay in ay xogta ka heshay 3 kamid ah saraakiisha wardoonka ee dalkaasi Iran oo soo xigatay 2 kamid ah bay tiri warar diblomaasiyiin gaar ahaan kuwa waxay tiri dhinaca in wararka dhagdhageeya ee Iraq iyo 2 kamid ah kuwa reer galbeedka oo dhamaantood cadeeyay inay Iran halkaasi u gudbisay gantaala ridada dhexe ee ballistic missiles kuwaas oo ay ku garaaci doonto goorta ay doonto haddii gaar ahaan la khatar geliyo oo weerar uu uga yimaado dowladaha Sunniyiinta ah ee gobolka iyo waliba Israa'iil oo iskaashanaya isla markaana ay ka diyaariso goobihii ay dhulka kala simi lahayd magaalooyinka Riyadh iyo Tel Aviv. waxa ay dowladda saraakiisha dowladda Iran ee warka u disiyay Reuters ay sheegeen in ay tani ay noqotay go'aankii ka soo baxay golaha militariga ee dalkaasi kadib markii la indheeyay baa la istiraatiijiyad ay tahay in Iran isku difaacdo taasoo loo qaybiyay 3 madax. 3 madax ayaa lagu sheegay in xagga Sham marka ay noqoto ama dalalka Sham waxaa loo yaqaanaa dalalka Suuriya iyo dalkaasi Lebanon iyo waliba dalka Falastiin intaas la isku dhaxaa waxaana la yiraahdaa istiraatiijiyadda Sham. istiraatiijiyadan mid lamid ah ayaa Israa'iil sameysatay. waxaan u maleynayaa wararkeena warar kamid ah ku dhageysateen ayagu waxay u kala bixiyeen bari galbeed iyo waqooyi oo ay ugu talagaleen diyaaradahooda inay isku mar duqeyn ka geystaan gaar ahaan diyaaradaha casriga ah ee Mareykanka uu ku hubeeyay hadeerto isla qadiyada mid u eg bay haatan ay ama shax u eg ayay dhigeen sida ay sheegayaan wakaaladaha wararka iyo wardoonku waxaa la yiri xagga Sham waxaa la xoojin doonaa baa la yiri saldhigyada aynu ku leenahay waa sida qoraalka lagu sheegay Lebanon iyo Suuriya. waxaa la yiri Iraq iyo xagga waxaa la yiri waqooyigana waxaa la xoojin doonaa baa la yiri dhammaan saldhigyada ku dhow Tel Aviv ee horay ay xilligii Saddam Hussein looga soo bartilmaameedsaday baa la yiri magaalada waa gaar ahaan dagaalkii khaliijka koobaad wadagaalkii Kuwait lagu xoreynayay oo uu gantaaladii loo jiray al-Hussein iyo al-Abbas uu la dhacay madaxweyne Saddam Hussein dalka Israa'iil waxaa la sheegay in halkaasi gantaalada ugu badan la geey doono. gantaalada ayaa la sheegay inay noqon doonaan kala yiraahdo salsala ama zilzila oo la yiraahdo iyo Fatah 110 iyo Solfaqar oo la sheegay inay dhamaantood ay u dhaxayaan kuwa 700 oo kilomitir ilaa 200 kilomitir isugu jiro gantaalada dhexe. waxaa la sheegay in sidoo kale xagga badana la xoojin doono marinka loo yaqaano marinka Hormuz iyo sidoo kale badda ama gacanka Persian. ciidamada al-Quds ayaa la sheegay in ay diyaariyeen sidii ay gobolka oo dhan u gaari lahayd dagaal haddii lagu soo qaado ama waxay doonayaan in gobolka oo dhan dhibaatadu gaadho si dagaalka ama magaalooyinka marka duqeyn lagu dhufto magaalooyinka dalalka Carbeed dabcan arrintaas ayaa dhici doonta. haatan qodobka ugu dambeeya madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisu ka tanaasuli doono iibsashada diyaaradaha F-35 asagoo hadlayay ayuu madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan wuxuu sheegay in gantaalaha S-400 uu dalkiisu u baahan yahay wuxuuna sheegay inuu sii wadi doono wuxuuna yiri hadii Mareykanku ku xidho shuruud ku xiran in uu joojiyo dalkiisu S-400 wuxuu yiri waxaan sii wadi doonaa anaguna in aanu dalalka kale aanu ka iibsano hub noocaas oo kale. wuxuu yiri Turkigu wuxuu u baahan yahay S-400 wuxuuna ugu baahan yahay in uu heshiiska sida ugu dhaqsaha badan ama ugu degdega badan u dhameeyo. sidoo kale waan u baahanayn buu diyaaradaha F-3
ama 35 wuxuu yiri hadii aysan diyaar u ahayn inay naga gadaan Mareykanka waxa jira meelo badan caalamku uu dhaafay buuri xilligii toogsa jiray hal dal inuu soo saaro qalab military 220 diyaaradood baan ka dalbanay buuri la hadeertana kama hayno wax kasoo naascadaadana ma jiraan sida daraadeed waxaanu doonaynaa buuri in aanu ka fikirno in aanu anagu soo saarno diyaarado dagaal oo nagu filaada iyo in aanu sidoo kale aanu iibsanay buuri anagu ama dalal kale ka iibsano wuxuu is weydiiyay sababta dalal kale yiraahdo dalalka Britain, Canada, Australia, Norway, Denmark, Italy ama Talyaaniga Netherlands ay ugu ogolaatay dawladda Mareykanku dalkiisana loo cadaadinayo ama loo luxjidayo wuxuu sheegay in ay diyaariyeen wuxuu ugu yeeray plan B ama qorshaha labaad madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan weeye daawadasha qiimaha leh faafinta wararka xaqina amaanal